haddii aad dareento daal tabardarra caajis buuqa xanuun iyo wax la mid ah samey 8 shay ee soo socota adiga oo raacaya hab cilmiyeedkan la dhiraandhiriyay waxaa jira 8 shay oo qasab tahay inaad samayso si aad xal ugu hesho haddii aad ka mid tahay dadka sida joogtada u dareema caajiska daalka ama xanuunka iyo wax la mid ah ilaa heer dadka qaar ay dhib ku noqoto dukashada salaada gaar ahaan taagnaanshaha waqtiga dheer halka dadka qaarna taa fadhiga ay dhibsadaan neeftuuri daal fara badan ee dareemaan markay ay soconayaan waxaan rajaynayaa cashirka kadib inaad qaado tallaabooyinkan si aad xal ugu hesho xaaladan magacaygu waa Turaab Dirsaaq soo dhawaada kow waxa ugu horeeyo oo qofku u keeni karo tabardarro iyo daal iyo wax la mid ah waa baahida oo haddii qofku cunto ku filan uusan cunin wuxuu dareemayaa daal fara badan madax xanuun tabardarri inuu wax energy u haynin hawsha uu qabanayo sababtana waxay tahay maadaama jirka uusan haysanin energy ku filan qofku wuxuu dareemayaa daal fara badan marka waxaa wanaagsan qofku inuu cuno cunto ku filan oo xaddiga cuntada uu qaadanayo inaysan cunto aad u fara badan cunto aad u yarna aysan ahayn oo cunto ku filan qaato sidoo kale inuu iska saxo xilliga cuntada uu qaadanayo dadka qaar waxaa dhacdo in subaxii mararka qaar cuntada aysan qaadanin oo duhurka ay qaataan mararka qaarna duhurka aysan qadin wax la mid ah marka taas jadwalka ay ka qaldaysaa marka cuntada xaddi kugu filan cun xilligan iska sax oo aroortii horena cun duhurkina cun habeenkina waxa aad u yar cun oo cunto fara badan ha cunin habeenkii sidoo kale nooca cunto aad qaadanaysana waa muhiim waxyaabahan la shiilay dufinka faraha badan loo gaaska wax kugu kicin karo korhurka iyo tabardarada kugu keeni karo ayagan iska ilaali oo isku badin oo subax hore qofku wax dufin badan leh ama saliid fara badan leh inuu cuno ma wanaagsana sidoo kale marka cuntada cunto tusaale quraacda oo kale marka cunto qadada inta la gaarin kor waxyaabo fudud inaa cunto ayaa wanaagsan ukunta iyo qudaarta wax la mid ah iyo sambuus aan saliid fara badan lahayn xitaa waa isticmaali kartaa xilliga galbihi oo qadada marka cunto oo kale inta cashada la gaarin ama subaxi quraacda kadib ilaa qadada inta laga gaarayo cunto fudud qudaar iyo wax la mid ah ama ukun iyo wax la mid ah waa isticmaali kartaa ama waxyaabo fudud daahilaysi si energy level kaada ama heerka energy iyo tamar ee jirkaada aysan hoos ugu dhicin qofku waxa laga yaabaa subax inuu quraacda habeenka casheeyo marka tabardarri iyo daal fara badan maalintii inuu dareemo oo shaqadiisa day fadhi tahay oo fadhiga uu dhibo hadduu taagnaan taagnaanta dhibto haddii shaqo socod ay tahay wax la mid ahna inuu tabardarro fara badan oo dareemo marka cuntada inaad iska saxdo waaye xaddiga aad qaadanay xilliga aad qaadanay nooca aad qaadanay cuntada labada cunto dhexdooda qada iyo quraacda ama casho iyo mataqaanaa qadana waa inaad cunto fudud aad qaadataa marka inaad la fahanteen ayaa rajaynaya qodobka wadoo ah inaad iska saxdo cuntada labo qofku waxaa wanaagsan in jimicsi uu sameeyo qofka hadduu cunto oo keliya oo cuna maanta oo idil uusan wax jimicsi sameynin murqihii iyo jirkii wuxuu ka dareemayaa tabardarro markii murqaha inaad ka shaqaysiiso ayaa loo baahan yahay jimicsiga keliya ma inaad bir qaado laakiin waa inaad soo socotaa ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii marka waa muhiim jimicsi inaad samayso si jirka aad ugu shaqaysiiso saddex haddii aad cayilan tahayna miisaankaada waa inaad dhintaa oo miisaanka faraha badan leh wuxuu carqaladeeyaa ama cillad ku keenaa habsan u shaqaynta jirka marka haddii aad u cayilan tahay neeftuur fara badan ayaa yeelanaysaa fadhi fara badan ma fadhi kartid taagnaan fara badan ma taagnaan kartid sababtoo miisaan xoogan ayaa jirkaada saaran marka inaad iska yarayso ayaan kugula talinaynaa miisaanka afar haddii hurdadaada ay qalqalsan tahay hurdada iska sax sababtoo qofka haddii hurdadiisa qalqalsan tahay maalinta ayaa laga gartaa oo hamaansi fara badan iyo caajis fara badan iyo madax xanuun fara badan iyo jirgo fara badan ayuu isku arkayaa marka waxaa wanaagsan ayaa la dhahaa xilliga aad jiifanaysa inaad iska saxdo oo xilli hore aad jiifato habeenkii xilliga aad soo kacaysa inaad iska saxdo oo xilli hore aad soo kacdo salaad subax ka hor sidoo kale saacadaha aad jiifanayso 7 saac ama 8 saac xiriir ugu yaraan inay ahaadaan ayaa wanaagsan waqtigan inaad iska hagaajiso aad seexanayso oo habeenba waqti aad jiifan subaxba waqti aad soo kacin ayaa fiican oo waqti cayiman oo saxan aad soo kacda waqti cayimannaas jiifata haddii kale waxaad dareemaysaa maalintii oo dhan jadwalka inuu kaa qaldamayo adiga dhanba waxba qabsan karin shan sidoo kale haddii stress wax la mid ama niyad aad dareemaysid inaad iska xaliso isku tay oo qobarada caafimaadka ay ku takhasusay xanuunada nafsiga wax la mid inaad u tagto isku day si mataqaanaa ay kaaga xaliyaan haddii problemo yar ay yihiin
يعني إنها حلسو اسكو داي سي جدول كذا سنكاga qaldin oo yani qofku wuxuu sameyn karaa yani stress fara badan oo dareemay gymki wax la mid inuu aado nafis badan ayuu ku dareemaa يعني cibaadada faraha badan nafis ay ku dareemaysaa dadkina dhex gasho saaxiibada nafis fara badan ay ku dareemaysaa qodobka lixaad waa in iska yareysaa waxyaabaha maadooyinkan kafeeyinka ay ku jiraan يعني sida shaaha iyo kafeega iyo energy drinks ka cabitaanada la dhahay waxaas xilliga galabta wixii ka dambeeya iska yarey sababtoo hurdada ay ka carqaladeynayaan daalkii tabardarada sidaas ay ku imaanaysaa marka ayagana iska yareysa ayaa wanaagsan todobo qofku waxa wanaagsan biyo fara badan inuu cabo oo ku filan ugu yaraan 8 glass maalintii qof qaangaarka ah marka haddii biyo cabkaad aad u yar yahay waxaa yeelan kartaa madax xanuun iyo daal fara badan jirka biyaha aad ay muhiim ugu yihiin waana waxyaabaha ugu muhiimsan oo ku shaqeeyo marka aad ay muhiim yihiin biyo kugu filan cabta maalintii marka haddii adiga oo intaas sameeyay wali dareemaysid daal tabardare caajis ama murq xanuun iyo wax la mid ah qodobka sideedaad yani booqo xarun caafimaad si baaritaan lagu sameeyo maadaama mararka qaar ee sababta ka imaan karto xanuuna aad qabto markii inaad fahanteen ayaa rajaynayaa sideeda qodob insha Allah. Assalaamu calaykum.